anigu gabadhay wax iska marin badan tahay inay ka nadaafad badan tahay because maanta tu basari waxba isma marinaysaba saasaan aamsanahay fikir ahaan because tu basari ismaba haleelaysa iyadii baa nafteeda haleelen laakiin qofkii markay gaari tahay nafteeda ay taqaano anigu ahaan maanta haddaan wax marsado dee maanta isma odhanayo caddi ama jaamacadan maanta wax u marsanaya marka waxaad leedahay hablaha wax u marsan waa basariya ku wax marsadaa gaariya may سامحة يعني قبل وح كمر شبابان تحي أي وجه جديو ناشناش أي كمر شبابان تحي بيكون نظافة بدن because ما كان وحس مرسا وادس كمرسا لكن تن وحبس ما مرسا ما يرشى بس كل هالي سوير تحي وهاجي ميكروفونك وقبل دي وقبل أرنتاسي محاك قف هرت عوي أنا ناق مذوب أنا اسمه اللي هي ناق كاميرا شو بدن بيجير تو كان نظافة بدن waxaan xasuustaa reer la deganaa waxay ugu oran jireen aheede maxaa baasad ka shaqeysaa 20 jeer maani kimeera taay midka horta kulama qabo oo basarnimadii gaarnimadu kuma xidhna maxay toolay iscadeyn iyo madoobaan oo waxa weeyaan waa qof barabitaankiisa iyo de sida uu noloshiisu tahay midan kale waxaad isku cadeysay nin baad isku cadeysay saad u heshanin maxay toolay si heblaaya aan kaaga qurux badnaa awooy maana qurux badnayn in maxay toolay waxyaabo ka muhiimsan inta aad xoog saarto mid kale ilaahay sida ugu qurux badnayd buu ku abuuray maxaa diiday inaad ku qanacdo sida inuu ilaahay ku abuuray quruxda standardkeeda yaa dajiyay yaa kugu yiri madowga faal xun oo casaanka qurux badan horta yaa kugu yiri yaa afrikaankeena yaa ku sanka weyn baa faal xun oo sanka dhuwan baa qurux badan timaha adag baa faal xun oo timaha jilicsan baa qurux badan standardska horta yaa inoo dajiyay bilaadan ma ku dajiyay adu bilaadan ma lahayn nolol ma lahayn rabitaan ma lahayn sidoo horta qof kasta ilaahay sida ugu qurux badnayd buu abuuray casaan bay dooreen waad iscadeysay naag buuran bay dooneen big power baad cuntay imika naag madow bay rabaan max madooweynaysaa naag dhuwan bay rabaan like come on live for your life واقع الشيخ أحمد